بسم الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله. waxaan qaadan doonaa casharkeenii lixaad ee koorsadii aan ku sharaxaynay sidii daatada loo maareeyo loona analyze gareeyo anagoo isticmaalayna statistical softwareka loo yaqaano stata. casharkeenna wuxuu ku saabsan yahay sidii aan wax badan uga ogaa lahayn daatadeenna maadaama inta aanan daatada analyze gareyn ka hor ay muhiim tahay inaan daatadeenna wax badan ka ognahay. qaybta ugu horreysa waxaan ka hadli doonaa inaan sidii aan daatadeenna uga fiiri lahayn ama u arki lahayn markii aan soo gelin statada. si aad daatada u aragtid waxaa la isticmaalaa laba command oo kala ah kan ugu horreeya browse waxaa loo isticmaalaa inaad daatadaada spreadsheetkeeda saa u aragtid ayaa loo isticmaalaa. sidoo kale listi oo ah inaad qayb daatada kamid ah listi garaysatid aad kusoo listi garaysatid qaybta stata consolka ah. daatadeenna waxay ka kooban tahay oo aan u isticmaali doono trainingkeenan waxay ka kooban tahay ilaa iyo 200 observation ama xog iyo 11 variable. haddii aan si yara kooban variableskeena u kala hadalno qaybta demographic variableskeena waxay kooban tahay gender oo 1 u taagan male 2 u taagan female, raceka ama jinsiyadaha dadka oo dabcan white iyo african iyo hispanic noqon doona, socioeconomic statuska dadka oo low iyo middle iyo high ah. sidoo kale variableskeena academic test scores kamid ah dadka imtixaanka academicska natiijooyinka keeneen oo ah tusaale ahaan imtixaan reading, write, math, science iyo social studies. daatadeenna haddaan isla fiirino oo soo gelino statadeenna number 1 aan imaano si aan u practice gareyno. number 1 marka daatadeena usoo gelisid waa inaa ogaatid working directorygaaga. so waxaan isticmaalaynaa commandiga bwd ahaa print working directory ah directorygeena garaysanayna. so aniga directorygeyga waa qaybta d folderkaas wd ayaa directorygeyga hadda yahay waana meesha daatadeeda igu jirto. dabcan meesha daatada igu jirto iyo working directory way isu keeleyihin aniga haddii aysan isu kaa lahayn waa barna dabcan si janj working directoryga waa sila soo aragnay asal ka horreeyay ayaan isku sharaxnay. si aan ogaana marka daatooyinka igu jira working directorygeyga waxaan isticmaali doonaa dir amase list oo ls loo soo gaabiyo labadaba waa la isticmaali kartaa. dabcan aniga hadda waxaan isticmaalay dir. working directorygeyga daatooyinka igu jiro dhan waa kuwaana. aniga waxaan u baahanaa marka daatada aan maanta practice garey doono casharka waa daatada training daatada ah waana daato ah stata ah. dabcan stata inay tahay waxaan ku fahmi doonaa maadaama extensionka ay wadato uu yahay dta. si daatadan aan usoo gelino statada waxaan isticmaali doonaa maadaama daatada ay tahay stata data ah use ayaa la isticmaalaa. dabcan kuwa kale oo excel daatada iyo sbss daatada iyo kuwaas commentska lagu soo geliyay ayadana waa bara doonaa maadaama casharkii hore aan ku sharxnay sida by drop down menu anagoo isticmaalayna sidaan daatada usoo geli lahayn ayaa casharka hore ku sharxnay laakiin commandiga maanaan sharxin. commandiga marka mid ayaan u sharxi doonaa insha allah. qaybtan maanta waxaan ku bara doontaa daato stata data ah see loo soo geliyaa. waxaa la isticmaalaa commandiga loo yaqaano use kadibna waxaan isticmaali doonaa quotation marks. daatadana waa tan waaye tan marka sideed usoo kuubiyeysanayna. dabcan training datas waa qori karnaa laakiin qoraalka ina wax ka qalada laga yaabaa see darteed waxa la recommend gareeyaa inaad sideed usoo kuubiyeysatid. markaan saa usoo gelino gadaal coma clear ayaa inta ugu badan laga raacaya marka data stata soo gelinaysid. hadafka looga dan leeyahana ama looga leeyahana waxaa waaye in haddii daato hore lacala statada ay ku jirtay ay kaa nadiifiso ama kaa kalir garayso. okay so daatadeenna hadda sidaan ayay noogu jirtaa. saa hore u sheegna daatadeenna waxay ka kooban tahay variablekeena waa kuwaana ilaa iyo 11 variable waaye waa 11 variable meeshaan saa ka arki kartiin iyo waxay ka kooban tahay observationska daatadeenna ka kooban tahayna maxaa waaye ilaa iyo 200 oo observation ay ka kooban tahay. si aan daatadeenna u aragno marka hadda daatadeenna waa soo gelina laakiin saa u aragno waxaan isticmaali doonaa browse. dabcan browse waa qori kartaa laakiin inta ugu badan waxaa loo soo gaabiya br ayaa soo gaabsanaynaa. daatadeenna waa tana marka variableka aan ka hadlaynay oo genderka iyo id iyo raceka jinsiyada dadka socioeconomic status school type program type grade right qofka natiijada ka keenan academic testeska science iyo social studies natiijooyinka ka keenana kuwaan. haddaa si yaro kooban u sharxna marka daatooyinkeenan ama meeshaan ku haysano si aa meesha uga jeedid columnska qaar waxay ku qoran waa fartooda waa black kuwa qaar waa blue kuwa qaarna maxaan u jeednaa maxaa waaye red. so maxay kala jeedaan ama macnahay kala matalayaan. columnkan black ah ama daatooyinka meeshaan ku jira waxay caddaynayaan in daatada meeshaan ku jirta ay tahay numeric unlabeled ah weliba data numeriga oo sidii loo geliyey ah oo aan la leebel garayn waa numeric data wax meeshaan ku jiro.
halka kuwan buluug ah ama columnkan buluuga daatooyin ku jiraahu ay sheegayaan inay tahay numeric data oo labeled numeric data ayay sheegayaan. sida meeshan ka muuqata waxaa ku qoran white iyo African Amur iyo Hispanic iyo waxaas meesha ku qoran. laakiin haddii aan ku dul dhufano mid kamid ah tusaale ka soo qaad white ku dul dhufano white haddaan ku dul dhufano meeshaas maxaa uga jeediin number 4 ah. so istaatada marka waxaa ku qorneen number 4 laakiin number 4 istaatada waxaa loo sheegay in number 4 ay u assign garayso ama u fahamto inuu yahay grayska ama qofka jinsiyadiisu ay tahay white ama qofka cad ayaa white loo qoonsado. qofka African Amur haddaan ku dul dhufano maxaa ku jiro meesha istaata mimriga waxaa ku jiro number 3 laakiin istaatada waxay u aqoonsatay ama loo diiwaan geliyay ama loo assign gareeyay inay tahay African Amur. so haddaan fiirino kan where is Hispanic haddaan fiirino sidoo kale Hispanicna maxaa waaye is 1 istaata mimriga 1 ku jiro laakiin waxaa loo aqoonsaday oo loo label gareeyay inay istaatadu u aqoonsato Hispanic inay aqoonsato. so qaybtan oo buluug ah waxaa waaye waa numeric laakiin waa labeled numeric la label gareeyay oo istaatada loo assign gareeyay in uu yahay ishek white ama African Amur ama ishek Hispanic kuwaas loo assign gareeyo. haddaan kuwa u nimaadno sidoo kale waa isla buluugii ay ku qoran yihiin waa labeled numeric waxa meeshan ku qoran dabcan waa low iyo middle iyo high laakiin istaatada mimrigeeda waxa ku kaydsan numbers ay meesha ku haysa. haddaa fiirisiin tusaalahan low haddaa fiirisiin waa 1 middle haddaa fiirino waa 2 high haddaa fiirisiin maxaa waaye waa 3. so these are waa numeric oo label gareeyo. haddaan u nimaadno qaybtan generalka sorry qaybtan oo program type haddaan u nimaado variable program type-ka dhammaantiis xogta ku jirto waa xog string maxaa loola jeedaa waa xog text ah oo aan yani wax numeric ahayn aan la label garayn. so these are text sidii loo geliyo qoraal sidiisii loo geliyay haddaa fiirin. so daatadeena saddexdaas unbay ka koobnaan kartaa inay noqoto data numeric ah inay noqoto labeled numeric iyo inay noqoto data string ah oo text caadi ah inay noqoto. okay haddaa fiirino slide-ka xigo next slide-kan hadda waa kaa sharxaynay oo aan dhahaynay columnska black waa numeric halka red columnska ay yihiin strings blue columnskana waxaan ku sheegnay sidoo kale inay yihiin numeric with string labels numeric oo labels string ah leh string dabcan wax text loo yaqaanaa. so haddaa fiirisiin white iyo ishee kuwaan oo dhan waa string laakiin waxay ku label garaysan yihiin number ayaa lagu label gareeyay. nice haddaan fiirino sida aan u dooran lahayn observationskeena dabcan marka observation dooranayso waxaa loo isticmaalaa labadan command inaan in isticmaalno anagoo hadafkeena uu yahay inaan number observations ku doorano ama se inaan isticmaalno if anagoo ku dooranayna by condition anagoo ku dooranayna shardi ku dooranayna. haddaa ugu horeysiino qaybta inta ah ayuu hormarsiinayaa oo lagu dooranayo in by number of observations lagu dooranayo. so tusaale ahaan qaybta ugu horeysa example ugu horeeya muxuu leeyahay list read and write for first 5 observations waxaa noo tixdaa natiijooyinka ardada ay ka keeneen readingka iyo writingka ay ka keeneen 5 observation ama 5 xog ee ugu horeysa ama 5 arday ee ugu horeysa. so commandigeena maxaa waa list read write in 1/5 maxaa inaad tixdid ardada natiijooyinka ay ka keeneen readingka iyo writingka 5 qofood ama 5 observation ee ugu horeyso. let us come to starter then aan qorno list l usoo gaabi kartaa l ayna usoo gaabi kartaa read caadi aan u qori karnaa sidoo kale meeshaan ka soo qaadan karnaa. tusaale ahaan writingka haddaan rabno meeshaan inta ka qori lahayn inta double click dhahaynaa kadibna in 1/5 5 qofood ee ugu horeysa natiijooyinka ay ka keeneen readingka iyo writingka waatana qaybtan starter console-ka ayuu noogu soo berindirgareeyay. next example haddaa fiirino kan muxuu ku leeyahay list science in the last 3 observations science-ka for the last 3 observations science ardada natiijooyinka 3 qofood ee ugu hooseysa ay maadada science ka keeneen list garay. so maxaa leenahay marka simply weli intaan qori lahayn meeshaan aan kusoo koobiisi karnaa maadaama meeshaan hore aan ugu qornay commandiga intaan ku qori doonaa soo koobi doonaa kadibna control p inta ku dheh eltan waa lowest dabcan sababtoo l loo qoray waxaa waaye saddexda observation ugu hooseyso elta waa inay noqoto small letter ahaan waa inay u qoran tahay. okay so
this waa kuwana resultiga saddexda qofood ee ugu hooseysa ama saddexda observation ee ugu hooseysa maadada science-ka ah resultiga ay ka keeneen oo kuwana. Okay, let us go to the next slide. Slide-ka xiga wuxuu sheegayaa hadda in ayaan dhowr example ka soo qaadanay. haddana waxaan qaadan doonaa observationska inaan ku aragno ama ku fiirino if anagoo isticmaalayno. Okay, tusaale ahaan waxaan rabnaa inaan ogaano genderka qofka, inuu noo taxo genderka qofka, socioeconomic statuska qofka iyo natiijada uu ka keenay xisaabta. haddii xisaabta natiijada uu ka keenay ay ka badan tahay 70, intaas ayaan rabnaa. waa in uu noo taxo genderka iyo socioeconomic statuska iyo maaska, laakiin maasku waa inuu ka weyn yahay 70 iyo wixii ka badan ayaan rabnaa inuu noo taxo. intaas iisoo koobiyey. kadibna dabcan idinka caadi u qori doontiin maadaama aniga haysto slideska iyo qoran si aad si clear u aragtiinna oo idin weynay karaa. so meeshaan imaado font then si aad si clear loo aragtiin lalaatiil xana kaga dhigo. so I think hadda si clear oo loo arkaa. Okay, so waa kuwaana dhammaan dadka ii sheeg labada variable doorna genderka iyo socioeconomic statuskaas leh oo xisaabtooda natiijada ay maadada xisaabta ka keeneen ay ka weyn tahay 70 natiijada ay 70 ka weyn tahay. so I think dadka natiijada xisaabta ay ka keeneen ay ka weyn tahay 70 waa ilaa iyo 10 qofood. Okay, next slide. qaybtan waxaan uga hadli doonaa stata, logical and relational operators. anagoo hadda logical iyo relational operators ayaa waxaan ku isticmaali doonaa ii sheeg in iyo ifti hadda aan soo arkaynay. marka hadda example-kaas la fiirino maxaan rabnaa inaan aragno ama datada aan aragno genderka qofka, socioeconomic statuskiisa, natiijada uu ka keenay, reading uu ka keenay qofkaas. haddii qofku uu yahay female, dabcan femaleka wuxuu ahaa waxaan ku assign garaynaa number 2 haddaa xasuutiin. natiijada qofkaas ama gabadhaasi reading ka keentana ay ka badan tahay 70. wuxuu noo taxaa aan rabnaa inaan helno genderka qofka oo weliba genderkaas uu noqonayo female iyo socioeconomic statuskiisa iyo readingka haddii natiijada xisaabta ay ka keenta ay ka badan tahay 70. so commandiga qaybtan dhammaan soo koobiyeysanayna kadibna waxaan keensanaynaa into stata command. so this is genderka ka soo sheegno. waxaan rabnaa inaan aragno browse waa dabcan hadda list markoo list isticmaalayna hadda waxaan rabnaa qaybta browse-ka oo spreadsheet-ka data dabcan ka arki doonaa genderka qofka, socioeconomic statuskiisa, reading imtixaanka uu ka keenay. dabcan qofku hadduu yahay genderkiisa 2 ay tahay waxaa loola jeeda waa female, isla markaasna imtixaanka readka uu ka keenana ay ka badan tahay 70. okay, so dhammaan gabdhaha imtixaanka natiijada readingka ay ka keenaan 70 ay ka badan tahay maxaa waaye waa 1 2 3 ilaa iyo 5 gabdhood waaye. socioeconomic statuska haddaa fiirino hal gabar ayaa middle level ah ama middle socioeconomic statuskiisa ay middle tahay, halka 4 kalena ay yihiin high. si aad ula socotiin markaan statada ku practice garaynayo datada aan maanta isticmaalay koorsada dhan aan u isticmaali doono, qaybta hoose ee description-ka ayaan soo dhigi doonaa commandiga datadaas aad ku heli kartiin. waxaa samayn doontiin kaliya commandigaas qaybta hoose description-ka aan soo dhigay koobiyey, qaybta command window-ga ee statadaada ku koobiyey, kadibna rangaray. laakiin waa in laptopkaaga uu ku xiran yahay ii sheeg internet waa inuu ku xiran yahay. sidoo kale teamka ama dadka maanta la socdo casharka maanta la socdo si aan idin dhiirigeliyo labada su'aalood ka soo shaqeeya fadlan. commandiska resultskan lagu heli karana qaybta hoose ee comments-ka kusoo qora.